السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan asxaabay meel kastood naga daawanaysan ku soo dhawaada mar kale iyo mid ka mid ah barnaamijyada aan ku talagalnay waa barnaamijkeeni labaad waa barnaamijkii galabnimo taariikhdu waa 15 bisha Luulyo sanadka 2026 hadaba barnaamijkeena labaad waxaanu ku soo qaadanaynaa wararkii soo kordhay intaynu kala maqnayn xaaladda bariga dhexe halkee maraysa dagaalkii u dhaxeeyay Iran iyo Mareykanka halkee la kala joogaa haddaba wararkii ugu dambeeyay ayaynu barnaamijka ku soo qaadanaynaa qodobada barnaamijkan idinku hayno waxaa ka mid ah xaguu ku dhamaaday dagaal qaraar oo maanta foolka foola oo dhex maray ciidanka Iran iyo kuwa Mareykanka marinbiyoodka Hormuz waxaa soo kale idin soo gudbin doonaa xogo ay heshay warbaahinta oo ku saabsan kulan ka dhacay aqalka cad xalay oo looga arinsaday in weerar ballaaran lagu qaado Iran oo wacad ku martay inaanay jiri doonin gobolka cid wax dhoofsanaysa shidaal iyo gaas midna inta Iran iyada loo diidan yahay inay wax dhoofsato haddaba xaaladda oo sii kululaanaysa marba marka ka dambaysa barnaamijka idinku soo gudbin doonaa qodobadaasi waxay kaloo soo kordhay intaynu barnaamijka ku jirno ayaynu barnaamijka ku faahfaahinaynaa haddaba wixii soo kordha barnaamijka ayaanu idinkugu soo gudbin doonaa barnaamijkuna waa kii labaad maanta oo arbacaan idiin soo gudbinayno kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo naga daawanaysaan kusoo dhawaada barnaamijkeenii labaad maanta waa maalinimo arbaca taariikhduna ay tahay 15 bisha 7 2026 haddaba barnaamijkeena waxaanu ku soo qaadanaynaa wararkii soo dhacay intaynu kala maqnayn oo ku saabsan dagaalka iyo xaaladda bariga dhexe haddaba waxaynu ku bilaabaynaa barnaamijkan kii ka horreeyay ee saak waxaynu ku soo qaadanay inay socdeen waxa la yiraahdo ishtibaakaad caniifa ama dagaal kulul oo si fiican rasaas la isugu riday oo u dhaxeeyay ciidanka ilaalada kacaanka Iran iyo ciidamada Mareykanka haddaba wakaaladda wararka ee Tasniim ayaa sheegtay in ciidamada Iran ay isticmaalayeen doomaha dheereeya oo gantaaluhu ku rakiban yihiin iyo sidoo kale waxay isticmaalayeen drones iyadoo la sheegay maraakiibta Iran ee dagaalka ay backup u ahayd oo gadaal ay ka joogtay haddaba maraakiibta Mareykanka ayaa la isfarasaaray maraakiibtii Mareykankana dib ayay u gurteen haddaba wararkii ugu dambeeyay marka waxay sheegayaan in xaaladdu ay degan tahay Mareykankuna war ayay ka soo saareen macluumaad ku saabsan guud ahaan wixii dhacay saacadihii la soo dhaafay halka ay beegsadeen iyo dagaal socday muddo 7 saacadood sida ay sheegeen in hadda la soo gabagabeeyay haddaba markaan idintu soo warka ay soo saareen dhanka Mareykanka ee ku saabsan dagaaladii ugu dambeeyay ee dhacay taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka ayaa sheegay inay soo gabagabeeyeen wareeg kale oo dheeraad ah oo ku saabsan weeraradii ay ku qaadayeen Iran haddaba taliska dhexe waxay sheegeen in weerarada ka dhanka Iran qaybtan la soo gabagabeeyay waxaynu bartilmaameedsanay ay yiraahdeen 10 goobood oo militariga ay leeyihiin Iran kuwaasoo ku dhow marinbiyoodka Hormuz iyo sidoo kale deegaanada xeebta ku teedsan ee Iran waxaasoo kale aynu fulinay yiraahdeen weeraro loo isticmaalay rasaas kaasoo lagu riday goobo ay markaasi ka soo dhacayeen sawaariiqda iyo diyaaradaha droniska Iran waxay soo kale sheegeen in dagaalka uu socday muddo ku dhow 7 saacadood oo markaa ay kula dagaalamayeen ciidamada Iran oo markaa duqeymo ay ku hayeen goobaha Iiraaniyiintu joogaan haddaba waxay sheegeen in ay markaasi sii wadi doonaan weeraradan laakiin qaybtan hadda weerarkii ugu dambeeyay ee socday 7 saacadood hadda uu joogsaday oo Mareykanku ay joojiyeen marka Mareykanku waxay leeyihiin intaasoo goobood meelaha ugu muhiimsan ee aan weerarayno waxay ahaayeen مناطق ساحلية ماشي هذا أما دينا حيبها ديجانا دا تيتسن أو مركا لغولا دقالما إيران إني كفوغا تومرين بيوت كهرمز سي مركا مريكنكو أي هالكا مركا أوقف صدان لكن إيران يدونا محيوكو جوابتي إني بواررتي مراكيبتي مريكنكا
oo badda ku sugnaa marinbiyoodka Hormuz inay weeraro ku qaaday oo halka ay weerar ku qaaday marka kullay xaaladdu way kacsan tahay tafaasiil badan oo dhanka Iran ka soo baxday marka laga reebo warbixintan wakaalada Tasniim ay qortay maahane warar kale oo dheeraada ma jiraan laakiin hadda jawigu wuu degan yahay marinbiyoodka Hormuzna wuu xiran yahay wax mari kara meel lagu dagaalamay oo maanta doomo iyo maraakiib iyo inagta iskaga saareen miyaa loo soo dhawaan karaa ba jirto meesha waa xarantay hawshaasu marka halkaas wararkaas ka soo kordhay war kale oo muhiim ah jira xalay waxa la yiri shir albaabada u xiran yihiin wuxuu ka dhacay aqalka cad waxa ka qayb galay tiimkii Trump oo dhan tiimkiisii ayaa ka wada qayb galay madaxweyne ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda wasiirka gaashaandhigga nimankii wada hadallada u qaabilsanaa abaanduulaha ciidanka wixii oo dhan waxay go'aan ku gaareen in Iran weeraro culus lagu qaado oo waliba la naafeeyo oo meelaha halbowlayaasha laga duqeeyo halbowlayaasha in laga duqeeyo Iran maxaa ka mid ah meelaha shidaalka meelaha korontada laga dhaliyo meelaha buundooyinka meelaha tareenadu ay maraan meel walba oo wixii bulshada kaabayaasheedii ahaa in la burburiyo dhulka la simo marka waa la isweydiiyay waxa la yiraahdaa intaas haddaan samayno maxaa dhacaya qaar waxay yiraahdeen Iran jawaabay bixin doontaayo wax walba iyaduna ay awoodo ayay samayn doontaa gobolka dhan wada hulci doona qolo kale waxay sheegtay maya way isdhiibi doonaan oo wada hadalladii ogolaan doonaan oo waxay dhigi doonaan wada hadal ogolna marka xalay kulankaas la soo dusiyay xogtaas ku saabsan Iran haddaba marka Iranna way ka jawaabi doontaa way noo soo socotaa laakiin marka hore xalay wixii dhacay aan aragno haddaba Al-Jazeera waxay soo xiganaysaa wakaalada la yiraahdo Axios ee wararka u qaabilsan Mareykanka waxay leedahay Trump wuxuu qabtay kulan looga hadlayo in weerarada Iran la ballaariyo haddaba waxaa la sheegayaa mowqica la yiraahdo Axios ama wargeyska Axios la yiraahdo ee Mareykanka ka soo baxa wuxuu soo xiganayaa mas'uuliyiin waxa uu sheegay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu qabtay kulan ka dhacay qolka la yiraahdo qolka hawlgallada degdega ah xalay oo talaado ahayd ayaa la qabtay waxaana looga doodayay weerarka Iran in la ballaariyo oo si xun loo garaaco Iran haddaba waxaa la sheegay in kulamadaasi ay ahaayeen kuwa muhiim ah oo loogu talagalay amniga qaranka waxaana ka qayb galay madaxweyne ku-xigeenka Vance wasiirka arrimaha dibadda Rubio wasiirka gaashaandhigga Hexed Nicola Witkoff iyo abaanduulaha ciidanka dalka Mareykanka iyo madaxa sirdoonka hay'adda CIA-da dhammaantood iyo Trump ayaa kulanka wada joogay waxayna go'aan ku gaareen leeyahay in weerarka Iran la ballaariyo oo soo waqti badan qaadan oo Iran hawsheeda la soo gabagabeeyo waaye marka Iran marka waxa la yiri waa la go'doominayaa wax shidaal oo dhoofsanaysa bale shidaalkeeda la duqeynayaa wax walba la baabiinayaa ilaa saasa marka xalay nimankii ku shireen Iran marka maxay tiri waa ognaayay waxa ku shireen laakiin annaguna ciidanka ilaalada kacaanka Iran waxay leedahay fariina soo dhiibayna bas fariina soo direen iyaguna ay kaga jawaabayaan wixii xalay qolka hawlgallada degdega looga shiray waxay yiraahdeen annaga kaliya dhibaatadu nama saameyn doonto ogaada kaabayaasha dhaqaalaha Iran kaliya lama baabiin doono dad badan kaabayaashoodii weyn doona shidaalka Iran kaliya lama burburin doono shidaal badan burburi doona wadooyinka Iran shidaalkeedii ay marinaysa hadii la xiray dad badan wadooyinku ka xirmi doona marka xisaabta ku darsadeen yaa loola jeedaa marka Iran xagee ka busqin doonta shidaalka ay garaacay doonto xagee la khaliijyo dhan qeylay marka khaliijku waxa leeyahay Trump oo sarba xal ma aha saan Iran hada shidaalkeedu weertaray shidaalkeena la garaacaya kaabayaashada garaacay kaabayaashada garaacayaan ma naga celin kartaa Iran ma naga difaaci kartaa may hataa lagu taataaban marka qaylada socota iyo buuqa iyo sawaxanka iyo cabsida iyo gariirka waa yaabas hadaba aanida tuso marka warbixinta dhanka Iran iyadana ka timid hadaba ciidanka ilaalada kacaanka Iran ayaa war jawaab u ah kulankii xalay ka dhacay
qolka la yiraahdo hawlgallada degdega ee aqalka cad ee Mareykanka soo saaray haddaba ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan waxay leeyihiin ciidanka ilaalada kacaanka Islaamiga Iiraan ayaa soo saaray bayaan adag oo ay ku hanjabayeen inay iyaguna carqaladayn doonaan marinada ay dalalka kale iyo xulafada Mareykanka u adeegsadaan dhoofinta shidaalka iyo gaaska haddii wadooyinka Iiraan ee shidaalka iyo gaaska ay ku dhoofinayso ay sii xirnaadaan waxay soo kale ku hanjabeen haddii la soo weeraro kaabayaasha iyo korontada iyo wax walba in meelo badan iyaduna korontada ay ka dami doonto gobolka kaabayaal badanna la weyn doono marka sheekadii marka way waalad Iiraan waxay taagan tahay aniga waxayga haddii la burburiyo anna waxaan burburinayaa xulafada Mareykanka gobolka uu ku leeyahay wixiisaan burburinayaa marka soo shira aqalka cad ku shira ama iska dhaafa adika idin taala sheekadii marka halkaas ay baashu ka miisaysaa marka xaalku halkaas uu maraya waa la subooteynaya marka ninkii Trump asaga marka waxa laga rabaa shidaalka Iiraan markuu duqeeyo sidii u difaaci lahaa xulafadiisa baka difaaci kara Iiraan may shidaalkii gobolka oo dhan marka isla gubanayo adduunka oo dhan marka shidaalkiisa waa u dhamaatay waa marka sheekadii marka halkaas ay baashu maraysaa halkaas uu baraya waaya wararka kale ee soo kordhay saacadii la soo dhaafay warbaahintu ka hadlayso waxa kamid ah askari Israa'iili ah oo qaybta difaaca ciidanka cirka ah ayaa waxa lagu xukumay 5 sano oo xabsi ah kadib markii la sheegay macluumaad inuu u gudbiyay qof ka tirsan sirdoonka Iiraan inuu siiyo macluumaad habka ay wax u difaacayaan iyo waxa ka ninkii marka maxkamada la saaray waxa lagu xukumay 5 sano oo xabsi ah dagaalka uu marka uu sirta bixiyay waa dagaalkii 12 maalmood socday dagaalkii ugu horeeyay ee Israa'iil iyo Iiraan dhexmaray marka askarigan marka Israa'iiliga marka 5 sano ayaa lagu xukumaa haddaba marka aad soo wararkii ugu dambeeyay xabsi ayaa lagu xukumay askari Israa'iili kadib markii lagu eedeeyay inuu macluumaad la wadaagay Iiraan haddaba ciidanka Israa'iil ayaa sheegay in ay markaasi maxkamad military ku xukuntay 5 sano oo xabsi ah askari Israa'iili kaasoo lagu eedeeyay inuu markaasi la shaqeynayay koox عميل إيراني أما قف كترسل سردونك إيران ولا وذاقي موضوعيو صور رأو قاضي إيو أرمك له إنو مركا لو ذاقي واي مركا يدونا مركا وركا سوحي كبدا هايين كوي قوة ويناء سوكر لي هذا مركا حالات دو سيدته جوي هذا مركا وادقين هاي ويرعو الصبا والعاي مجران لكن mar walba xabad joojini ma jirto Mareykanka uu soo qaadayaan nimankanuna way weerari doonaan marka weerarkii cuslaa uu sheegay xalay lagu heshiiyay ma lagu qaadi doonaa bashidaalkoodii wuxuudii la beegsan doonaa hadda maanta weeraradii dhacay kulli kuma jirin maanta waxa la weerarayay manaadiq saaxiliya meesha la yiraahdo anaa dhulka dhinaca xeebta iyo waxaan iyo meelaha sawaariiqdu ka soo dhacaan iyo waxa socday laakiin dagaalka ay hadda ku heshiiyeen oo xalay aqalka cad غرفة العمليات meesha la yiraahdo qolka waxa la yiraahdaa hawlgallada degdega waa lagu shira amniga looga hadlayo ragii waaweynaa oo dhan waxay ku shireen goormay la bilaabi doonaa marka waa arki doonaa kulay annaguna wixii soo kordha waan idin la socodsiin doonaa bal fakarkiina aragtidiina adikuna ku soo cabira arikan muxuu ku dhawaan doonaa baad isleedihiin bal loo soo qora لايك جري أو شير جري برنامج كأصحابه أنت عن مركز برنامج كلا بدك كل ما ينو نود قليل